waxaa jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho lagu arkay Sihaam Axmed Nuur Faarax oo wadata qalabka kabaha lagu baalasho ama lagu caseeyo. Sihaam Nuur oo ah hooyo dhashay 2 carruur ah ayaa runta TV uga sheekaysay sababta ku jirtay shaqadan oo aan looga baranin inay dumarku qabtaan, waxayna tiri iyadoo magaceeda ku bilaabaysa sida tan. Ano Sihaam Nuur Maxamed Faarax waxaa ka shaqeynaa waa arkaysiin kawa baalasha waxaa ka biilaa ilmo qoys ilmaana ka biilaa ilmo kale aan waa qalanahay kan iyo gabar kale oo qale oo gabar ka yar Salma la dhaho kana Salmaan la dhaha waxa uu qasbana bukaan qalan oo cunuga uu xariir 2 cunuga oo waxba islaamin uu xariiro inuu qof shaqo ku siinay. Sihaam Nuur ayaa sheegtay inay dad badan kula yaabeen shaqadan ay hayso, balse ma jirta ayay tiri fadhi iyo xishood mar haday daruuftu meesha timaado. ninkaygii i caawin jiray waa u dhintay, mana haysto cid kale oo garab istaagta, waxaana la iga sugayaa bay tiri biil joogta iyo kiro guri. waa tan Sihaam oo mar kale ka hadlaysa duruufaha ku wareegsan. amar ilaahay uu ku imaado uu xanuunsay amar Allah ilaahay jecel si ilaahay ka hees Allah marna waa hela marna waa waaya mar arkaas oo soo firsano u baxay oo qofku isliyaaba gabar wax xasanaysi maxaa way dhaayo qaar oo mashquulaan qaarna dhiirgelin oo ku siinayaan qaarna qalbiga ka jibinayaan laan waxaas bareeg mu qab wala waxaan shaqo maahan shaqo ku wanaagsan ka codsanaya. warkan iyo warar kale oo xiiso badan waxaad ka bogan doontaa channelka-yaga Runta TV oo had iyo goor ku soo gudbin doona warar sugan oo xaqiiqo ah.